waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijkan qiimaha leh ee aan maanta isugu nimid mahadoo dhanna waxay u sugnaatay allah subxaanahu wa tacaala oo halkaan isugu kaayo keenay noona suurtageliyay inaan isku nimaadno. marka xiga waxaan u mahad celinayaa aqoon-yahanada, siyaasiyiinta, xildhibaanada, odayaasha dhaqanka, dhallinyarada, abwaanada, haweenka, qurbajoogta iyo dhammaan inta kasoo qayb gashay ee soo ajiibtay inaan dooda ay nala wadaagaan. gaar ahaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xisbiga cadaaladda iyo bulshada ee uu hogaamiyo gudoomiye maxamuud axmed nuur tarsan. cabdi xaashi laba qodoba isagana ka soo baxay waan jeclaan lahaa inaad noodkaas qorqorataan. waxaan u yeerayaa gudoomiye salaad cali jeelle ayaa isagana shacabka siyaasadda gudoomiyeha gudoomiye waxaa leedahay shaqadiiqo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. runtii dood cilmiyeedku Soomaaliya kuma badno isu imaadkeeda iyo isdhegeysigeedaba iska yare waa nookow aan ka dhigayna. horta arrimaha aniga hadda xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda wax la yidhaahaan samaystay sababta aan u sameeyana waxaa waaye dadka gaarsiiyaan isleeyahay qof iyo codkiisa. laakiin aniga hadda inaan dan khaasa ka keenayo ma hubo. laakiin ujeedadayda halgankayga wuxuu ku dhisan yahay in dadkan ay codeeyaan oo qabiilka laga gudbo. aan rabaa inaan khasab uga dhigo dad waxaa jira ka faa'iideysta qabyaaladda dadka ka faa'iideysaa maxaa kamida dadka aan dhacayno daa'im oo xildhibaan iska ah. qodobka labaadoo rab waxaa idiin sheega iyo dhaweeday aan aniga baxo boosaasaan tego waxaan u doodaya degaan in markii layga diiday qof iyo codkiisa in degaan wax lagu doorto. ujeedada aan kala hayna maxay tahay degaan haddii la aado qofkan xildhibaanka daa'im oo iska heesta waa ka dhuma oo magafaha. waxaan rabaa marka inaan ka geeyo meel dad badan ay joogaan. hadda kaligiisa iska qora asaana naqaan. marka waxaan idhi marka doodiyaan waxaan isla galna marka doodii dadku kaa dhegeysamaa. marka waxaan idhi hadda ka hor nabi daa-uud iyo nabi sulaymaan waa isdhaleen laba nabi oo isdhasha waa. marka waxaa dood u fudatay marka iriya inta mirtay cidkeedaaha cid beer ka soo daad. ninkii wuxuu yidhi beertaydii iga daadee aniga irigan anaaba qaadaaba maxaa yeelay aniga beerha ma haysto. maxaa yeelay beerta haddii aniga beertaas beertayda ay eber tahay irigan ninkaas oo u wadaa waa in aniga irigii lahaysiiya ilaa asaa beertaydii baaba-ashay. laba nabi waaye waxaa la yidhi marka cadaalad samee. marka aayaddaana waxay dhaheen wadaa'uuda wa sulaymaana id yaxkumaani fi lxarthi id nafashat fiihi ganamu lqowm wa kunnaa lixukmihim shaahidiina. ilaahayna maragow ka naqan beertii sidii loo xukumayay oo goobjoog isaguna ka naqan. war haddii Soomaaliya istiraatiiji loo samayhayo in arrinta ilaahay markhaati ka naqda xadiida ma beel iri daaqday ka liidata. iri beer daaqda laba nabi iyo ilaahay isugu yimideeni asaa cadaaladii la sugaahe. war Soomaaliya intay aadeen ma qof iyo codkiisaan aadayna
ورمدقين هذين ورما قبيل كأن كسو جرنا نوفيعا إن كتبنا حديدة ولا الديدة تطبق فضجها كدودي هذه مكة إلهي وحوري وداود إيه وسليمان إذ وقت يحكمان أي حكومين في الحرث بير إذ وقت نفشت أي كمرة يرموا القوم قوم إليجيز وكنا لحكم مشاهدين أنا يا مرك أهينو ففهمناها سليمان ويمرك إيجارك لا طلعيا اللي فهمسي أدوقي وأنا قبلي أدوقي طلعيا نبي حد أنا قبلي ورتدك حكمة تدك يكون جرتاي هذا حكمة دي اللي قدونيه العبراية العلاية لما هم مكر الليل سي حكمة وإيمان maxaa lagu doortaa hadda madaxdeena fiiri maxaa lagu dooraa qofka marka dooree waxa la rabaa muxuu soo qabtay inaad dhaxdo ninka madaxweynaha ka dhigay Soomaa xal ku garay adiga inuu fiican ma dawladda u soo shaqeeyay asaad ugu bigtay ma sawa iska wala had kala isaga jaasho iyo dhaweedo oo mataqaana mar oo carabta ka keenyay تمر موكسي يا نويل هلا تدعوني يا مركي يا ماجرت مو أديك تمر كسي يا صانت كدورة ما صحيح وصابت كدورة أديك سوماليا ليدر إلا هذا ليدر كان أدوه إله ما يهدو متغانيني قفك إنه شغيات كوكراكتا هدو شغال أما شغادو كفشلما أما قولوا ككينه كي قول ككينه على جارها بين الدورة تمر. وأنت أقول رحت له وقبرص. ما حأوقف كوجي أوقف ماذا أوقف؟ ستة حدري. ما هو أوكي. مركا أديك السوق حوالك السوق قدر نف أتحط هنا السوق قدر. سومالي وحيد كده أنت أوقف قدر أنت أوقي. من التقاليد درسكا وصو صفريو طروفك كنتي او انه على جوها اقولي ان الصوغه هي ان تكون نصيب ستوال وانا لما كنا نصيب سيدنا نصيب سيدنا لو يوم القران واتي كل وجهنا على محمد بهوس تعالى للويكند بلادي في الصلاه قبيله قران ورجال المهيره قال يا حسيب تسوليتي قبيلتنا وحيينو ويقال يسيد القرآن تنجب اللوثي الجاني لو يقوم مضحة يمين كستو قلع سراء يمين كستو مامل القاسوك بالله والقرآن كي ألف وحمد لو كنت رجل وحينو ويقال سنة ألف إنتير با بحر تا تركي تأكيد كير حق الكرير خاصة أنت إذا أنت لا تركي لكن سبساني من الحديث سيدنا نزل بلوشن كيرا هل كان تقرح قدع